waa nin dhalinyara fanka uu ka baxay marka waxaan rabay su-aalahaas intaan dadka xarsan weydiin lahaa inaan isaga weydiiyo in person maxaa dareenta markaa fanka ka baxday والله horta barbar fanka markaan ka baxay oo Minnesota u soo guuray $200 iyo gaari yariisan wati wallahi ana been ku sheegeen 22 sano waa shaqeynaa laakiin maanta marka inta soo degay akoonkayga over $100,000 ku jirto markaan fanka ka baxay nolosheena $5,000 ma save gareyn inta fan ku jira firi 2 times Turkey aan tagay laba mar hadda Nairobi hal mar aan tagay markii labaad waa dalxiis u socdo Miami Florida aan tagay meel aan tagin malaha maalinta fanka ku jira Chicago aan dalxiis u tagay waa brother laakiin maanta nolosheeda ma ku fikireen $100,000 akoonka ku dhacayso gaari waxaan wataa oo $52,000 aan ka soo bixiyay barbar ilaahu haddaan been ku sheegay meeshan joog Allah ila jaro fanka markaa ka baxaysana waxaa wadatay $200 iyo gaari yar Toyota Prius aan watay inaan been ku sheegana wallahi gaari Toyota Prius oo battery ah iyo $200 hayst niyo hadalkaaga $2,000 gaari diiwaan jaamac wedi hadalkaaga ma beenaynayo samantara horta ismaanan arag aniga adiga laakiin dee warkaaga waa hayay oo dee waxaa mar walba aniga adiga noo dhexeeyay liibaan jaamaco adna wax kaa duubi jiray adna wax iga duubi jiray marka fanaaniintu dee isma warseegana way iska warhaysaa aniga horta niyow fanka markaan soo galay 2017kii baan soo galay July 14 markaan fanka soo galiyey waa iska soo galay wax reason ah oo aan dhihi kara maanta reasonkaasaan fan usoo galay ma jirin waa iska soo gala dalaq kadib kuma rafanoo dadka waxaa jira qaar ku rafto oo dee ku rafaado in muddo fanka isaga jira oo ay kala kici weydo iyo qaar marka ugu horreysaba dubbo loogu dhufto oo shaydaan wato oo hal mar bug yiraahda hore ka qarxay heesta ugu hore aniga laba heesood baan sameeyey mid xoogaa bay kacday heesta ugu horreysay oo mootada aan saarnaa tii kale halfcock bay noqotay barbarna adduunkoo dhan bay isqabsatay kadibna heese badan baan isku xijiyey wax aan ka faa'iiday maanta oo aan dhihi karo waxaasaan ka faa'iiday oo aan ka ahayn aflagaado iyo cay iyo buuq iyo ree hebel inaan ahay oo la keeno iyo ciddaan ree hebel kasii ahay oo la ogaado awal layma aqoon nin dhallinyaraa baan iska ahaa comedian baan iska ahaa nin iska qalbi furan baan ahaa fanku wuxuu ku gelinayaa xoogaa yaroo cadiifada xaasidnimo yar dhibaato yar waxbaa iska jira xurguf balaayo fanaaniin kalaa kugu kacaysa kuwii baa la challenge garaynaysaa hadda aniga yaantaan wax fanaan isma hayno that's why aan hadda fanka aan gebigiisaba u nacay haddaan laakiin xoogaa isqaqabanno fanaaniin aan sahayno laxamo iyo nuclear iyo gantaal iyo waxbaan isku rakibaya habeenkii dagaal baan iska gelayaa wax aan la dagaalaya ma aqaan saasaan wax u ridayaa wax aan ka faa'iiday oo aan ka ahayn magacaas Omar Barbar oo dee maanta haddii meel aan maro lay garanayo oo la islaamayo leeyahay see tahay sawir leela geliyay intaas ka faa'iiday see tahaydaas iyo salaantaas iyo sawirka lagula gelayo waa wax weyn dadka Soomaalida inay ma garanaysaa waa gabigooduba waa 12 milyan ama 20 milyan ba 20 milyan inay ku yaqaanaan oo 20 milyan aad ku dhex dhumayn haddaan maanta wuxuu baahatid Turkiga haddaan maanta waxooga baahdo dad aan i garanayn baan aaminayaa oo aan leeyahay waxaa iisii sameeya waa inay ii samaynayaan intaasaan ka faa'iiday laakiin lacag kama faa'iidin heesta barbar 12 milyan bay maraysaa one wayser kama faa'iidin hal show baan dhigtay oo Australia ku dhigtay wax show ah $70,000 lacag saa u badan ma $70,000 adigu dee waa iska garan kartaa fanaanku markuu xagga tago la suuriyeeyaa waa la soo dhaweeyaa adigu wixii dhan markii la isku dardaro $70,000 baa fanka sameeyay oo showgaas Australia hadda marka waxaan rabay inaan tour sameeyo tourka markaan sameeyana aan soo afjaro maadaama aan sii weynaanayo nin weyn noqday oo aan chapter kale oo noloshayda bilaabo kuma taagnaan kartid 24 saac waa runo fan hadda shalay marka adigu fan ka baxaysay $200 baa wadatay iyo gaari yar maantana saa sheegayso $100,000 ka badan baa waxay ku jirtaa akoonkaaga gaari $50,000 waa wadataa I believe anigu aaminayaa waxaan u aaminayaa waxaad joogtaa dhulkii fursadaad joogtaa aniga hadda liibaan jaamac 24 hours isla joognaa
liibaan jaamac waa ninka keliya oo arta fiidiyoyadii codadkii wax dhan sameeya waa magtoodo cabdiwahaab cantar naaji anoo fan ku jirnaa saaxiibo ahaynoo meel ka soo wada kici jirno wax isla cunno hees cabdiwahaab uusan haynin oo aniga aanan haynin ma jiro heesiisoo dhan cabdiwahaab waa ii shuba aniga maanta heestuu tunto galabtu markuu ii dhegeystayo dhooniyo ii soo dir he knows aniga heesa dad ma siiyo music cabdiwahaab tumay oo aniga aan haayo weliga intaan baxnin fanaana ma siinin ani cabdiwahaab intaasaan ka wada simana inta keliyo saaxiib igula yahay intaas waay ma fahamta haddaan aniga wixii isticmaalaynin dad kale ma siiyo wuu ogyahay sharciga noo yaal bikaas waa ogahay saaxiibkay waa waxa keliya uu lacag ku sameeyo uu ku shaqaysto waa marraba marka shaqadiisana ka hor istaaga waa ixtiraamaa marka maalin baa liibaan marka isla joogna xaafadiisa iska joogna waa iska baaba'shaalaynay adiga waxbaan daldalbaayey liibaan dee waa taqaanaa dadka soomaalida akoonka markaa la furo isha geesay ku xadaan moogta wuu aamini waay wuxuu aamini waayey screen shot inuu yahay inuu fek yahay in kale ilaa hadda inta kaliya waa yaabaya ninkaana ahaayo ilaa hadda waa ka dhaadhici laada he's not believing marka hadda aniga waxaa ii qorshaysan horta inaan tuurkaas oo gabagabada aan sameeyo tuurkaas aan dadka dhan isku soo aragno haddaan bixi rabaa adigu rabadaanka wixii ka dambeeya insha allah haddii ilaahay idmo waxaan rabaa inaan yurub oo dhan soo maro turkiga iyo malaysia indonesia indiya meelaha soo maro maraykanka maro afrika tago dadkii oo dhan iswada aragno waxaas intaa wixii ka dambeeya waxaan ugu sii jira waa hadee waa baashi waa iska walaaqa ma garanaysaa horta is good idea horta barbaro inkastoo maartiniyo horta fankaaga uu qarxay aa ka mid tahay fanaaniinta hadda oo popularka oo caanka oo dunida laga yaqaano oo maanta maarata recordka haddii masabrada fanaaniinta lasoo qaato dadka ka mid aa tahay dadka hitka fanaaniinta ku jiro is good inaa horta Minnesota noogu imaadid anaga show kuu qabano ilkacasaa jooga sharma boy waa jooga kulli asxaabtaada waa kaagama turjubaanaya moogta in xaflad maarata weyn oo lagu qabto maarata fanskaaga imaadaan meel walba dunida ingiriiska meel walba ka qayb gasho is a good idea so markaad toorka soo marto waxyaalo badanaa baranaya marka fanka soomaalida wuxuu yahay wuxuu gudo wuxuu galo iyo wuxuu istaahila maalintaasaa baranay aniga farxiifiskaa safar isku raacnay anigoo rafaadsan intaan birmingham aniga intaan show ka dhigay iidan ee london ka dhigtaa habeenkii anigoo seexanayn intaan isku imaanay cararna elborka tagnaa finland ka dhacnay والله أنا بيكون شيئا شوقي was sold أنا إذا هن was sold ماشي ولا بوحي برنامج كي واد ماذا جورج مركان تكني برادرو نمكي السجيني إني وحي أي نوع إمادان وإمادان واحد هن نيو العق ما هينو دين نقولياش أنا قاعد سنين شو العق السجين سنين دكتور ورتكت كأنا عن قصة بحنا حتى العقد إني نوع عليا وديدين nidaamka idinka khaldamay maba ahaanba just that's Soomaalida that's the way ay fanaaniintooda ula dhaqmaan brother Soomaali fankooda ma ixtiraamaan fanaankooda ma ixtiraamaan Soomaali dad fanaaniintooda support gareeyna ma ahan Samantro wax yar baan kuu sheegayaa horta qoladee taadu ani habar gidra yaa ka taa ni horta wax yar baan maanta kuu sheegayaa Soomaaliya waa imisa milyan adiga 1.8 milyan waa 1.8 milyan ma ahane 1 milyan Soomaali ma ahane Soomaaliya waa intee milyan baa ku yiri adiga population ma ka hadlay dadka tiradooda adiga ana dan qiyaas ilaa 1.8 amna ku qiyaasa 1.8 maxaa ka wadaa 1 milyan maya 1 milyan 800 kun 1 milyan 800 kun Soomaali ah ha وما حسبت ما يرتاح سمنتر سوى حوضة واي Soomaaliya meeqa milyan waaye milyan kaliya Puntland ku nool ha Soomaaliya 1.8 ka dhigaayo ma Samantr oo qurbaan meeqa milyan in qanayso ma marka hadii isku daro meeqa qanay marka xisaabta sax Soomaaliya waa meeqa milyan baan ku yiri kaliya 3 milyan ku nool soo marka 100 milyan ma qanay marka maya 100 milyan ma noqonaysa Soomaaliya waa 20 million أما هو 25 million. 1.8 million أشياء يصير قربة يجوكتا أمريكا كيجوكتا. أنت قربة كنا الكليو هاي؟ إن في صوماليا و 25 million كم السوق. أوكي. وحن كسر ولا هذا الدلوع اللي سووا سعودة. شوقي نما كان شيء خالد أي دكتين
ciidina ma dhihin maxaa dhacay maxaa waa wareey lama dhihin caawa anu nin majeerteen aan ahay wiil harti aan ahay kabla laxa daaro ismaaciila haddaan show qabiilaysan dhigo oo aan iraahdo waxaan u dhigayaa inta madaxa madow iyo majeerteen baan show u dhigayaa haddaan dhaho showgaa kasoo qayb gala xagee aaday samantar waa carare miyaa showgaa kasoo qayb gala haddaan dhaho waxa weeye hadalhayntiisu ma yaraanayso waa wareey showga majeerteenoy waa wareey kadaayoy hartigiyo maxaa dhiiqa midkaan laday dhiiqo beella wats dhiiqo inaadeer war ma lay maqlaa ها waa lagu maqlayaa eeg showgii nairobi ka dhacay cid hadal haysa ma maqasheen maya showgii shiikaal sharaafta xataa wuu dhacay oo shaadi sharaf cidna ma hadlayso hadda anigu haddaan soo dejiyo intaan yetebori tago yetebori waa iska garan kadhaan gothenburg dj ice uu garanaya oo ii aamusiyey dj-ga ugu weyn yurub hadda haddaan yetebori tago oo aan soo dejiyo show qabiilkiisa wato oo xamaasadiisa wato aan iraahdo qof aan faamiliga ahayn faamiligaan casumay calaa kulli xaal oo showga aan u dhigayaa horta showgu cirku ku dhigayaa show khatar uu noqonayaa cirku ku dhigayaa laakiin hadalhayntiisaa badanaysa anna waa la idacaayadaynayaa waxaa la leeyahay show qabyahaas nimcaan hilaac waa saaxiibkay halkaan baa noogu yimid showga markaan lala qabanay oo showga dhigay wuxuu dhigay mid kale oo faamiligiisaabuu dhigay annagoo fanaaniina waxaadna la yidhi markii faamiligu shirka dhammaystaan kabacdi baad soo geli doontaan yaa la shirayey nimcaan baa la shirayey waana fanaan weyn oo soo maray waa beri marka waxaan sheekadan ku keenay hadda anigu caawa haddaan dhaho soomaaliya show baan dhigayaa la ii soo galo showgeyga waxaa laga yaabaa dhowr qof inay iska timaado ama in yaroo taageerta inay iska timaado laakiin haddaan dhaho show reeraysan baan dhigayaa oy ibtisaam iyo soo gelayaan haddii ilaahay ku idmaayo naagta la yidhahda jamiilo qurux iyo haddaan dhaho hadalhayntiisaa badanaysa waxaa la leeyahay ninkii oomaar ahaa balaayo bilaabay waa wareey xaguu ka baxay dididididi khalad buu keenay didididide baa la leeyahay heesta qabiilada markaan qaadayey waa heestii ugu horreysay qofkii ugu horreeyo hees qabiil qaada dj ice markhaati buu ka ahaa waa layla yaabanaa waxaa lalahaa niyow dad badan baa niyow waxaan jooji war niyow waxaan jooji dad badan baa isoo maagay isoo caayay war ninkaan balbedi ku fiirsha hadda maxaa aragteen nin galmudug habar geediro gorxaabe baana geelisu taaqo goori ceel baana haddaan la shidin waa lagu kala tegaya qabiil hawyaanu hay sacad baan ka hay shiikhaal cadday isugu waa idiin shidayaa heestii dalmareer shiikhaal cadday eeg shalayna waa la ila yaabanaa mararka qaar way fiican tahay dadka inaad ka horreysid 12 kilomitir waa ogaa anugu inay sheekada soo socoto inay imaanayso haddana sheeko kalaan bilaabaya oo hor leh waana arki doontaan ayadana normal bay la noqonaysaa dadka fahmaysaan dj ice